السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام أصحابته سهرين وفشل مركز تأجوكتين مر لبعض مرسح سود وهذا ما تعيد وذا لجن الفنان حسن صوي سود وهاكي سود عيوب الفنان ما اللي بيعيد أيوة عم قرب الفنان هو أصحابته كحنا سهرين هذا وما ستين وقت سود وهذا مركز لبعض ترتو عوا هذا أوفر أحسن هاي هنا عن جنالك ولا شيء سو مغضو رنتنا السين دريم ويو هواي برنامج في عمل يفهم سيني لكن واحد مشكلة ماله كل هذا اللي مكو هذا اللي أدل مجرى تمو أدزيرن ديار واحد تمو مجرى تبرتين معه هذه أصحاب تاذر وعدين سلامة سماية هي مرة سود وحسن حقولها مع المهن هودا قبضتي محن معجن محاك أوجه مجال حصل ورقوي به أوكي هاي سالس كويستا هي سالس كويستا قبل ده هاس سميس قبل لا كود مي معاك لا ده horta ana hadda horta aniga sideedaba caadiyan marka hore u heesi jirin gobol wiliga u heesi jirin sax laakiin runtu waxay tahay si kala hadii aan u fasirane horta ani waxa ahaa qof aflaam sameeyo mar walbana Soomaalimadu ku weyn tahay film sameeyo waxa ahaa filmadiisa lagu yaqaan badanaa inay ka hadlaan wadaniyada waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed culays ku hayo iyo waxyaabaha dadka marka ka dhex guuxa maskaxdooda in laga hadlana u baahan aflaamtii ku sameyn jiray waddan walbana isteed soo leeyahay isteediyada marka adduunyada wadamada federalism ku dhisan isteediyadooda ama goboladooda soo taqaan ama goboladooda gobol walba waqti baa la taagay calankiisa sax oo maamul sameystay oo yaani marka loo dabaaldeg ah horta gobolada inta badan hadda sanadkan Puntland oo kale waxaan ugu hees ma sameeynin laakiin qaab waxaan ula dabaaldegay oo in social media bareeyga aan ku leeyahay dhan أنت صوصار عليك بدنا كدبنا أنو خمبليين إن وحاسوحك تهدا قلمودو هير شوالي ودميين قلمودو قاسوحكتو أفر يطبان كي أغسطو معلم قروح بدن وتيم أصحابتي إذا أحد هذا أدو جعل هاي قبت قلمودو أن لدى بردق دون إن شاء الله أنيقا ولكن أحمد صادق يعقوب عراق عبد العلمي waxaan iyo xasaxidig oo music designer ka ama music production ka waxa ku heshiinay oo ani markaa aan fikirka keenay in hees galmudug aan ugu imaamadno ama markaa farxadaas aan kala qaybsanayn baliyada ma sha Allah markaas waxaan soo saarnay heestii galmudug marka horta ereyadu iyo laxanka heesta ana lahaa laxanka heestu waa humaaga laxanka waa laxanka waxa la heestu waxay ku samaysan tahay ama qaabka loo qaadayo heesti kale oo ani aan soo saaray oo la soo saaray kaskii production iyaduna waxa la yiraahdaa waa Soomaali taas iska caddahay waa Soomaali weyn oo dhan ay u dhaxaysa saa aragtay caasimadaha goboleedyada dhan la sheegaya rutina markii la yiraahdo waa Soomaali qof walba oo dhiig Soomaali ku jiro horta been ayaa la isku sheegin Soomaali waa la wada yahay sax qof Soomaalinimada ka weyn ma jirto qof walbana markii oo waa Soomaali qofka la yiraahdo هذا ما كان وضعك كبحث وحكو بحث سومالنمو وضعك ما كان تجلس وحلو أقصنا إن تخص سومالية هذه ما أنت وضع شيء جوكتو حقه كلام مرة يسمونه قف كاسيا واحد هم الواحد حتى إن لو قلنا الجال الله كي سومالي واحد أما كي سومالي ده بين تمام مركب مهم ده واحد تاين هي سنوا سومالي الله يدنا وجدت كأوسمين واحد كلامين سواء أمان like هست أريد حكمي ده سنجوا مسؤولة وسومالي حبلها سورة ده وعوا سومالي لباحية أفريقيا وصومالي بوق تاريخ قال وصومالي ما شاء الله ما فهمت مركا لبدا سي صورتا لبدا ujeedooyin kala duwan oo soo saaray waxaan wadaniyad ka ahayn iga ma ahan baani waxaan wadaniyad iyo dad jecel iyo dal jecel ka ahayn ma biiga ahan baani wixii kale ani mala gambada ani wixii aan sheegaro waa sheega filina ku sheega laakiin wixii sheega fanding ما شاء الله شرف على ذلك مركز ضمن رجيس أنا قبل ذلك الحس وشاقة دايقا هيرشبيلا ديمان جوهريالو وسلامنتي سومالي لان horta gobolada kala dhaaday bogti aad afsad ay keenin gobolada bas Soomaali wana simi ani boog ma jecel koode soo barbarabo horta Soomaali laftooda waxa rabaa insha Allah in hees وعلن لو سو كلا كلام تلنتال سمي عم سوا مت كلا ما تلنتال مع بوجا ما يسل غادي والدنيا وهي سومالي ما ودني ذا ايه لا سعسي كلام موجود هذه ما أنا بوجا يعني مثل هيس نبو ده عديدة ما كمل أنا إجبر مثل هيس نبضنا أيه هذا حتى هيسان صوت قبل أوصل يونو أنا أصحابي قبل مسلم أنا هيس مسلمة تلجين وهيستي يقول الحين وقبل سوق قلوين
hadda heesta gabdhaha waxay ku soo galeen waxay tahay heesta wadaniyad waa wadanina caadi waa naga wada dhexe wadanka anagii gabdhaha laakiin heesaha kale ani talanta gabdha lama sameeyo sax heesta Soomaalida soo qaaday gabdho TikTok leh caanaha ku jiraan walaasha Shushu Cabdalla wiil caan ayagana mursal Shushu Farole waa badan ku jiraan ma sha Allah maxaa ugu tala gasho saas ugu soo xush waxa u xushay wax kala ma ahan way iska caddahay Shushu horta heesta markii gabdhaha ad like nimco waxa wacana Shushu gabar caasha la dhaho way badnaayeen gabdhaha ma sha Allah sababta horta loo waco waxay ahayd qofka horta qof walba sabab lagu xushay sax qof marka hees sameynaysid like Soomaalinimadii hablaha Soomaalida amaanaysid waxa u baahan tahay habla soo jiidasho lorto because heestan waxa laga yaabaa in international u gudubto adduunyada dhan laga daawanayo yaa mugtiin macquul marka horta gabdho u qalmo hablaha Soomaaliyeed marka amaanayso matali kara horta oo xul ah in la keeno koo sax ismailna lah yani tusaalaan waxa ku qaato waxay gabdhaas gabdho waxay aan waji furan laakiin markii fiidiyoga laga qabanayo had Shushu kala artay gabadho la cadeen badan yaa farxad leh oo wajigeeda markii calanka loo xiray calankana saas u qaba la dhaho qofka markuu fiidiyogeeda arka ma sha Allah oo yani qof soo jiidasho leh yab oo ku qancaayo dadka taageera kamid yes sidoo kalena maadaama heestu hees weyn ay ahaydna dad waaweyn la isku keenay sharafta qorayso mursal iyo dadkaas oo dhan ixtiraam u hayo respect ya u hayo ya daas waa u wacday waa dad aan jecel aan qaba u wacdo waxa macquul in dadka kala soo jiidaan ها ما ujeedadu horta dad macnaha horta ujeedadaas ma ahayn yani dad wada caana naqanaysiisas darteed ma naga ahaynba laakiin ujeedka waxay ahaydba maadaama dadkan ay dad sumcad iyo sharaf magaalada ku leh anina aan Soomaaliyo dhan amaanayo habla soo galaa ka soo galaa inaan wada amaano muuqaalka wada muuqan sax heesta galmudug hadda ma rajaynaysaa in heerka si sareysi gaarto waa inoo reer galmudug waa kacsiin ba markii heesta waa yaaban ana yaabay ama caqabad ka timaada gobolada ilooda ma jiraan maya ani waa sheegay Puntland xilligeeda heeso uma diyaarsaneen filman ku mashquulsanaay laakiin bareeyga bulshada waa kala qayb qaateen YouTube-kayga waxaan soo saaray community-ga waa la arki karaa taariikhda soo geliyay aan u hambalyeynaa Puntland Instagram-kayga waa soo saaray Facebook-gayga waa soo saaray meel aan saarin ma jirto Puntland galmudug laakiin anoo Jaanis hayo xilligoodii imaaday heesna waa u qaaday hadda Puntland kama maarmi doono waa u qaadi doona heeso badan Somaliland sidoo kale waa la qaadi doona heeso badan Hirshabeelle iyo maxalla Jubbaland iyo kulli total waa socdaan noolyahay ma hadda galmudug magaalooyin badan mogtaa magaalada galmudug ma soo wada qabto magaalo ilowda dacwo lagu qaba jiraad wallahi way jiri karaan laakiin sababta ku sheega heesta dadku way dareemi karaan heesta limid leedahay leedahay soolale wax la jiro qeybo laxankana waxa jiro magaalo sometimes waxa jiro laxanka ku heesis aan qabanina jiro hadda Dhuusamareeb ayadoo caasimadii ahayd maxaan ugu dhacma taqaanaa eriga Dhuusamareeb aan qaban waaye meeshan kamara inta kamara waxa dhaan maadaama caasimadii ay tahay ma laga tii karsayeelna Samareeb aan ka soo qaadan eriga Samareeb daawa si fiican Samareeb tala yaabana caawal madan Dhuusamareeb la isan yeeleenahay bismillaah mana ka tagi karno oo caasimadii dhan maamul goboleedka ma ka tagi karno Samareeb ya hatta dadka u yaqaan hadii la had istiin Samareeb tas waxa soo qaadaba meel yar xaafada uu ka soo qaaday Dhuusamareeb weynid aaw no Dhuusamareeb aka wadna Samareeb laxanka diiday laxanka dad sidoo kale jahliga jirmudu marka leeyahay waa salaama hablihi amara salaama marka qaab kale hadii eri dheer oo imaado oo Dhuusamareeb ama oo saas ama oo qaban waayo waxa lagu qasbanaana erigaas in si kale loo ka saar loo dhaho ama magaalo kale lagu soo bedelo ilaa gobolka magaalooyin tuulooyin oo degmo ma wada tiri karo sax waa heesta xadkeeda ilaa ka gaartay inta magaalo laga gaar lagu tirina laxanka yareedo magaalo ma dhamaahaysa eray asxaabta galmudug waa maqlaysiin waad kala jahal baxshay waxaana jahil ka ahay maanta uu ciil qabaya ugu soo muraaday ilaa boner shibis taas ay ahayd Samareebta ku haastay no adi beledkaaga ka weysiyo ma abo ma wana ka samanahay ma lagu waa hal beled aan leedahay la amaal ma beled ma jiro Soomaaliya yani 14 ama sheegnaba 15 ha sheegna 15 ka bacdigiisa tiri karo ma xasamida ku weydiina qofta Muqdisho ku dhashay ku dhex barbaaray gobol ma sheeg karaa sababta ku sheega sababta ku sheega Soomaalida dhan ee Muqdisho ka dhaxaysa qof walbana asal original meel ka soo ka imaaday had salahan ani markii la weydiyo ani banaadir ahay reer xamar ahay yani Muqdisho ku dhasha ka wada oo banaadir ku soo barbaaray laakiin dibka jiro wuxuu yahay aabiis wuxuu ku dhasheen Jubbaland waay sometimes markii la weydiyo leedahay where you from original hadii leedahay maxaa Jubbaland marka waxa ka wada
caasimadan dadka dhan ay u dhexaysaa laakiin sax waa qof walba gobol ka soo jeedaa gobol ka soo jeeda laasan mid afiir shaba aabay muqdisho ku dhash hooyaday muqdisho ku dhalat ana muqdisho ku dhalday wixii familka ka saa muqdisho ku dhasheen inta aada way gobol le degtaa gobol waa la degaa beema horta dil xisaab okay su'aal mudiya family gaaga total minta muqdisho bas ma degaan hala ka saa muqdisho joogan ana aabay oo hooyaday ma sheegaya يعني توتال dadka ka soo jeedo oo ka dhalatay muqdisho ka soo jeedo muqdisho ma degan macnaha hadda familka koow oo inta yarada koobataanka reer muqdisho horti laakiin marka hooyaday aabay ma ka wada familkaas ma ka wada had Soomaalida waxa tusaalahan qabiilka ka wada qabiilka ka dhalata mooday inta ka soo jeedaan Hirshabelle meere ma ka soo jeedaan oo like tusaalahan marka aad reer Hirshabelle la tahay because muqdisho idinko degan hadana laakiin waxa kaga badantiin meesha degantiin صح واحد ساسا لغودا marka هذا حتى غير هذا بلع لو كلا مeel لو ريح ما Hirshabelle u qaadane aan soo taageereen laakiin kullu waa taageersanaa maana Soomaalidu way isma tahay shanta Soomaaliyeed qofka markuu wari yahay markuu dhaqtar yahay markuu macallin yahay oo fanaan yahay qabiil ma yeela karo may hergal mudug gurtu waa salaam ma sha Allah in kasta taba qabiil dil ilaahu dadka Soomaaliyeed way jiraan ana fiir horta mid ku shay ani gal mudug aan leeyahay oo Hirshabelle aan leeyahay oo Jubbaland aan leeyahay Somaliland aan leeyahay meel kasta ana leh sababta waxay tahay maxaa u leeyahay ani Soomaali ahay ani Ugandheesna ma ihi Burundeesna ma fahanteen marka kulliya leeyahay xoog miya ya ididi karo kulliya leeyahay that's why kulli waa heesa horta hooyada kii raba heestay asoo diiro kii rabana aqaato sax waay laakiin kulli waa heesa ani حسن يا ساسو ودي horta soo dhaarsan yahay inta dhiman saddex meel gobol ku dhimarti waa inta kala dhiman lama leen bahaysiye hal heesa hal waayo ala gooni wees wada taxrigo saate inta kala dhiman saaxib laakiin sukiya munaasabadaha ku xiran tahay hadda galmudug yaa ku xig munaasabadahan Hirshabelle oo maleena inay soo xigayso Hirshabelle ku xigay markii heesteeda wixii kala iska sugaan xanaaqina kuwa kale waxa waaye waa lu dhaxtuura maayne had Hirshabelle oo maleena inay xigi doonto sababtoo xitaa ciida ugu sokaysa dabaaldeg markaa ma sha Allah xasan heesaha jacayl nacda xaaga beert jacayl ma nacda aniya jacayl sa uga hadlay ana jacaylu jacaylan waa ka rabaa jacayl ma loo ka kara ku heesi kara hadan jacayl ma dhamaahay laakiin heesi jacaylkina dhaafto ma waa soo wada mayno jacayl sidiisa waa nolosha barka Soomaaliya baa lagu nool yahay lagu dalay waa lagu baashaa Soomaaliya saacada aad ma santiin muuqaalka like share garaa saacada labada soo gaana muuqaalkan oo kale bye bye